جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. xadiiskan walu fiirsada ninbaa nabiga u yimid salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi ka waran nin duulay oo jihaad ka qayb galay. jihaadkuna waa dirwati salaam alislaam, waa meesha ugu sarraysa, waxa weeye waa caaradda meesha ugu sarraysa, fiiqda hore weeye, waa baarka hore weeye. laakiin muxuu doonayaa ajarna waa rabaa, in la xusuuliyo ninkaa waa nin geesiyana waa uu rabaa. ninkaa muxuu leeyahay? waxba ma leeyahay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh. maxaa yeelay in allaha laa yaqbalu min alcamali ila ma kana khaalisan wabtuqiya bihi wajhu. ilaahay aqbali mahayo camalka ilaa kii khaalisa mooye oo ilaahay dartii loola jeeda mooye, wax kale aqbali mahayo. daal adugu waxa rabta suubi. xadiiskii kaloo abu hurayra: inamaa yubcathu nnaasu calaa niyaatihim. dadka waxaa lagu soo saarahayaa وعلى قدر نياتهم، على صحة نياتهم، على خلوص نياتهم. نيادو سي أهايد بالغو سو صارين. حديث جابرنا: يحشر الناس على نياتهم واسكو معهم. ولذلك نبي حديث عبادة بن الصامت وحي: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. يعني ننكي دولي oo jihaadka ka qayb galay oo waxa uu rabay kaliya uu yahay inuu dabar soo furto xarig, wuxuu niyeystay buu leeyahay. magarat wuxuu niyeystay ayuu leeyahay. xadiiskaasina waa xadiis saxiix. walidalik aakhiru zamanka nabigu wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi halkaa in la iskaga imaan doono. meesha la iskaga imaan doono inay tahay xagga niyada iyo xagga qalbiga iyo xagga lilaahinimada in la iskaga imaan doono markii aakhiru zamanku yahay ayaa nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh. wuxuu yidhi xadiis ka mid ah: watufuqiha ligayri ddiin. yacni marka aakhiru zamanka la gaaro dadku diinta waxay u baranayaan, ma garatay, diinta waxaan ahayn. yani cilmigii bay baranayaan, fiqhigii bay baranayaan, laakiin ilaahay dartii u baran mayaan. ilaahay dartii u baran mayaan. waxaa ka mid ah xadiiskii kale oo saxiixa ahaa: man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu llah laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama. qofkii barta cilmigaasoo ah wax alla loogu dhowaado oo ilaahay loola jihaysto, aan u baranayn inuu wax xun dhaldhalaalah, wax xun adduunyaa inuu ku heli mahayo jannada urkeeda maalinta qiyaama. inuu gala iska daaye xataa urin mahayo. wuxuu kaluu nabigu noo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh: akaru munaafiqii ummatii quraa'uhaa. xadiis laga naxa weeye. yacni munaafiqiinta ummadayda waxaa ugu badan quraadeeda. quraadu waa culummadeeda. yacni quraada waagi hore ma aha ninka qur-aanka akhriya keliya, dadka uun cilmiga iyo ka shaqeeya ayaa quraa la odhan jiray. dadka ugu badani waa kuwa, ma garatay. arrinkaasi marka arrin laga naxo oo aad iyo aad la isku ilaaliyo oo la baqo weeye. maxaan ku idhaahdaa, qalbigaas iyo niyaddu inay xumaato. qur-aanku aad ayuu uga hadlay qalbiga, kiisa fiican iyo kiisa xun. alfaadda qur-aanka ee ku soo aroortay qur-aanka markii laga hadlahayo ee qalbiga laga hadlahayo, qur-aanka ilaa 15 wasfi ayaa ku soo aroortay qalbiga, oo qalbiga laga sheegahayo hadduu jiran yahay. waxaa ka mid ah in la daboolo alkhatm. qalbigaasi waa qalbi qufulan oo tiimbar lagu dhajiyo, la khatmiyey, sheega waa la xiray, odafaa la saaray. khatama allaahu calaa quluubihim. ilaahay waa daboolay qalbigoodii oo xaqba geli maayo. waxaa ka mid ah azayq, iilasho. falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum.
min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum zayq inxiraaf inuu dhaco qalbigaas. waxaa ka mid ah jiro marad oo qur-aanka in badan ku soo aroortay in badan maradka fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada. qalbigooda waa jiran yahay. jiradaasi waa ogaan doonaa anwaac bay yeelan doontaa, anwaac ayay yeelan doontaa. waxaa ka mid ah haflada oo qofku haafil yahay oonu xusuus lahayn. walaa tutic man aghfalna qalbahu can dikrina wattabaca hawaah wa kaana amruhu furuta. ha adeecin ku qalbigiisa uu haafil yahay waan waxba ogayn oon xusuusnayn ilaahay dikrigiisa iyo qur-aankiisa. waxaa ka mid ah alkin, shayga kan in mare la saaray oo qofku hadduu mare isa saaro yataqaطa oo mare isku daboolo. wajacalnaa calaa quluubihim akinnatan an yafqahuuh, maraan ka saarnay waa la daboolay. waqaaluu quluubunaa fii akinnatin mima tadcuuna ilayh, iyagaaba saas leh, qalbiga iyagu waa ka daboolan yahay oo maraan ka huwannahay. inqilaaqi alquluub wacadami idraakiha ma heleelayso, waa xiran tahay. abci in waxaas la dabciyo oo waa la dabciye la yidhaahdo fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun kadalika yaطbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin wanatbacu calaa quluubihim bal طabaca allahu calayha bikufrihim kadalika naطbacu calaa quluubi almuctadiin. abci khatmiga iyo dabciga iyo naqshigu waa isku dhowdhow yihiin, laakiin khatmiga iyo dabciga aad iskaga sii dhowdhow. waxaa ka mid ah oo qur-aanka awsaafta qalbiga jiran ama qalbiga xun uu sheegay, waxaa ka mid ah alqaswa. shayga kan waa shay angegay. uma qasat quluubukum min bacdi dalik fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa. yacni qalbigiinnu waa mid angegay oo waa angegay qalbigiinnu. dhagaxa waa ka adag yahay, dhagaxa waa ka adag yahay. wax dhagax ka dusa hadda yaa garanaya, waa adagta. fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya. yacni burinta ay buriyeen ballankii iyo wixii lagu ogaa ayaa lacnad iyo waxaa iskugu darantay qalbigoodu inuu qaasi noqdo oo adkaado oo aan waxba gelayn. dux ma leh, waxba ku duxi mayaan. liyajcala maa yulqi الshayطaanu fitnatan liladiina fii quluubihim maradun wاlqaasiyati quluubuhum. yani dadkaas qalbigoodu adag yahay weeye arrinkaas. waxaa kaloo qur-aanka ku soo aroortay ulf, waa dabool. macaanidu ha kala duwanaato laakiin isku dhowdhowdahay. waqaaluu quluubuna ulf ay hayru waaciya, waxaan maba fahmaysa maba dareemayso. waxaa soo arooray qalbi adayg, hilda. walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik. haddaad ahaan lahayd mid qalbi adag way kaa kala carari lahaayeen. waxaa soo arooray waxaan waa daxalaysteen. wax daxalaysta soo garan maysaan. arraan kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. yacni waxaa fuulay wasakhdii iyo qashinkii iyo waxbaa koray, waa daxalaystay shaygaas. waxaa ka mida alghil oo cadaawada ah, waxaa hilliga ah. walaa tajcal fii quluubina hillan liladiina aamanuu. qalbiga iyaga ilaahay oo cadaawo ha u gelinin dadka muslimiinta ah oo mu'miniinta ah. waxaa ka mid ah qalbigu inuu waxa u arkaa, qalbigu inuu dhabeelo, indhihii dam yidhaahdaan. bini aadan baa laga dhigay qalbigii, bini aadan aan indhalahayn oo waxba arkayn, yani qalbi aan waxba arkayn. fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur. yani waxa indhala'aantu waxa weeye waa qalbigaagu inuu indhala yahay wey, oona waxba arkayn. ma ahan qofka indhahala, ma ahan qofka aan indhahaan caadiga ah aan lahayn, ma ahan. waa qofka qalbigiisu xiran yahay wey. fainaha laa tacma alabsaar. indhuhu dam ma yidhaahdaan qofka, oo qofka indhahala caalim buu noqdaa, sheekh buu noqdaa, nin muslimuu noqdaa, nin fiican buu noqdaa. nebigu markuu aado haswo ama meel aado wuxuu uga tegi jiray madiina cabdullaahi bni ummi maktuum
nin dhalab u ahaa isagaa madiina madax ka ahaan jiray oo dadka tujin jiray ma garat nin dhalab u ahaa marka indhala'aantu qofka xudhimi mayso laakiin mushkiladu waxa weeye camyi alquluub yani indhala'aanta ku dhacda qalbiga walidalik indhaha iyo dhaguhuba waxay wax ku maqlaan waa qalbiga nin shaaciraho carabi wuxuu yidhi famaa tubsiru alcaynaanu fii mawdici alhawa walaa tasmacu aludunaanu ila min alqalbi yani indhuhu iyo dhaguhuba waxay asiir u yihiin u qafaalan yihiin waa wadnaha wey waa qalbiga wey halkaasay u qafaalan yihiin qur-aanku wuxuu ka sheekeeyey in uu lahwi ku dhaco oo uu maxaan ku idhaahdaa dammanaan ay ku dhacda qalbiga oo ayna waxba fahmahayn laahiyatan quluubuhum yani mid maxaan ku idhaahdaa aan waxba dareensanaynoo damman inay tahay waxaa ka mid ah xarajka iyo ciriiriga qalbiga ciriiri baa gala waxaa gala xaraj baa gala qalbiga waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaannamaa yasacadu fi اsamaa qofkii ilaahay uu baadiyeeyo uu baadiyaynayo uu doono inuu baadiyeeyo qalbigiisa waxaa laga dhigaa mid kooban oo maxaanku idhahda ciriiri ah oo waxba deeqayn ma garatay oo xaraj baa haysta oo waxaa moodaa inuu tafahayo samada inuu tafahayo dhibka haysta qofkaas waxaa ku dhaca oo qalbiga gala dhimasho qalbigu mayit buu noqdaa waa dhintaa